السلام عليكم كسور دوادا برنامج كعافمات كأفكا يلكا الصومالي سمايلز موضوعنا مانتا وحكو سابسن يهي دونتا إلكا إلى أنت عافمات كأفكا يلكو وحي نوغا باهين دادال جوبتا وامحي دونتا إلكو ودون ير أولو استعمالو إن لو نضيفيو إلكا دحدودا مهمة داينو لدهي دونتو وحويان waxay ka hortagtaa cirid xanuunka waxay kale ka saartaa haraaga iyo cuntada ilkaha dhexdooda taasoo burushkuuna gaarin imisa jeer ayaa loo baahan yahay maalintii inaad samayso si aad u hesho natiijada ugu fiican waa inaad hal mar samaysaa maalintii haddaba qaybtan waxaan ku sharixi doonaa qaabka habboon ee loo isticmaalayo dunta ilkaha lagu nadiifiyo fadlan raac tallaabooyinkan soo socda farxalo kadibna soo qaado dunta ilkaha soo gooso in leeg 60 sentimitir qiyaastii kadib ku duub fardhaxada sida ka muuqata muuqaalkan waxaad soo reebtaa in yar oo u dhiganta ilaa 3 sentimitir qiyaastii oo ah inta la isticmaali doono marka la nadiifinayo ilkaha dhexdooda kadib ku qabo dunta labada farood ee suulka iyo murdisada sida ka muuqata muuqaalka kadibna dhaxmari dunta ilkaha dhexdooda si tartiib ah una dhaqaaji dunta kor iyo hoos ilaa aad ka gaariso halka ay iska geliyaan ilkaha iyo ciridku haddii aad aragto dhiig ka imanaya ciridkaaga waa wax la filanayo haddii aad ku cusub tahay isticmaalka dunta ilkaha lagu nadiifiyo haddii uu dhiiggaasi farabato fadlan hore u gaar dhakhtarkaaga ilkaha si uu ka caawiyo qaabka habboon ee loo isticmaalayo dunta ilkaha afkaaga oo caafimaad qaba waa jirkaaga oo caafimaad qaba ku xidhnow YouTube channelkan Somali Smiles saad uga socotid muuqaallo wacyigelineed oo ku saabsan caafimaadka afka iyo ilkaha